السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا هي ودمانتين وايدين سلامي waxaan rabaa inaan idin soo jeediyo codsigaas oo ku saabsan gabadh walaasheen ah oo la yiraahdo Faadumo Buraanbur oo laga qaatay 7 caruur oo dhashay oo ku nool wadanka Sweden saan filayo ilmaha hadda caloosheeda ku jirana la raba in la qaato oo loo sheegay baa waxa aad iyo aad runtii dareen ii geliyay kliibkii ugu dambeeyay ee ka dhageystay oo ahaa inay tagtay isbitaalka kadibna loo sheegay ilmaha caloosha ay ku wado in laga qaadan doono waxa kale oo soo jiitay gabadhaasi ilaahay say mar walba ugu xamdinayso iyo qadarka iyo qadaha ilaahay siday raali ugu tahay mar walba ilaahayna ay ugu shukrinayso waxa dareentan walaalayaal hooyo 7 caruur dhashay oo walacday oo foolatay oo soo korisay oo kulligood hal habeen laga wada qaatay gurigeediina mugdi uu noqday dareenka ay leedahay iyo caloosheeda dareenka ka muuqanaya bal qof walba uu dareen waxaaba ka sii daran ilmaha hadda ay caloosha ku wado oo ku xanuunsato isbitaal ay ku gashay oo jirro kalena caloosha looga sheegay oo u weheliso nolosheediiba riski ay ku jirto ay gashay baa haddana waxaa la sugayaa intay ka dhalayso waxay soo jiitay hadalka ay tiri allahayow haddaad iigu tala gashay inaan gacmaha saaro oon qabto waan qaban doonaa haddii kalena qadarka alla ayay raali ku tahay waxaan rabaa walaalayaal wakhtiga aan joogno oo fadli badan xalay anigoo aqrinaya fi suurati tawba iyo suuratu yuusuf baa waxaa ii joojiyey 4 aayadood oo labana suuratu tawba ay ku jiraan labana suuratu yuusuf ay ku jiraan labada suuratu tawba waa aayadda 51 ee rabbi leeyahay qul lan yusiibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa cala allahi falyatawakkalul mu'min haddaba Faadumoy wax ilaahay kuu qoray baad maraysaa ilaahayna waa tala saaratay kuna hoojin maayo insha Allah ta'ala aayadda labaad waa aayadda ugu dambaysa fi suurati tawba ee 100 taqriiban 29 fa in tawallow faqul xasbiya allahu laa ilaaha illaa huu calayhi tawakkaltu huwa rabbul carshil cadiim marka xasbiya allahu wa nicmal wakiil leh ilaahay baa kugu filan insha allahu tacaala labada aayadood ee fi suurati yuusuf waa aayadda 18 ee markii yuusuf aabihii uu waayay uu yidhi fasabrun jamiilun wallaahu almustacaan marka ilaahay tala saaro waanad heli ilmahaaga aayadda u dambaysa waa fi suurati yuusuf aayadda 87 ee rabbi uu leeyahay yaa baniya idhabuu fataxassasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawxi illaah إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون آياداس بشارة حنبار سنتهي أن روينا وبشارة فاطمة أو إن شاء الله تعالى سيدي نبي الله يوسف أولواهي أو ويلي يرأها أو لوط الشضي أو لقاقاتي أو قعم بلان سيمري أو آبيه أغسو لابتي إسوغو بقر أو ملحة بعرور تالي سلمان iyo ikhwatihi walaalihi wa akhawatihi baa ku soo noqon doona insha Allah ta'ala abshir waxaan rabaa walaalayaal dadweynaha codsigaygu inaan idhaahdo habeenadan oo la rajaynayo laylatul qadrigu inuu ku jiro gabadha aan wada ducayno asmaada ilaahay ee waaweyn aan ugu ducayno allahumma inna nas'aluka ya allah بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترجع أولادها إلهي با وحان كو ديسان مغعيسا وين إنا وحان كو إيا أسمائه إيا وصفاتي إنو عرورتي دي بسوعليو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الدعاء سو اسم الله الأعظم وكجره بان إلهي وويدينينا إنو قبرنا علمه وسوعليو إلهي قبرنا علمه وسوعليو إلهي ردهم الله ردا جميلا إلهي قلبي هذا هو قبوجيو إلهي هو حفظيو الله هو إلاليو وجزاكم الله خير
وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.